أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan walaalayaal waxaynu wada ogsoonnahay kitaabka qur-aankii inuu yahay kitaabkii ilaahay subxaanahu watacaala inuu yahay ilaahay hadalkiisa muqadaska ah, eriyadaas inay yihiin eriyadii ilaahay subxaanahu watacaala iyo hadalkii ilaahay nagula hadlay isaga oo inoogu soo diray malak jibriil malaa'igtii jibriil amba malakii jibriil oo nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam kusoo dejiyey kitaabka qur-aanka ah amba hadallada ilaahay ee lagugu ururiyey markaas kitaabka qur-aanka lagu wada qoray si aanu inooga lumin isagoo ilaahay ballan qaaday in uu ilaahay subxaanahu watacaala inoo ilaalinayo qowlkiisa ilaahay inoo soo dejiyey axkaamta diinteenna iyo cibaadaadkeenna iyo mucaamalaadkeenna iyo wax walba oo bani aadamka muslimka ah ku saabsan siduu ilaahay u baran lahaa uu u caabudi lahaa xaqa cibaadatihi ayuu ilaahay subxaanahu watacaala inoogu sheegay qisaskii dadkii hore iyo ambiyaagii hore iyo aqwaamtii hore iyo wixii soo maray ayuu ilaahay inoogu warramay jannada iyo naarta ayuu ilaahay inoogu warramay iyo sida jannadana loo galo naartana lagaga badbaado dhammaanteen intaa waynu wada ogsoonahay alxamdulilah calaa nicmat alislaam. haddaba waxaa dhacday dhacdo runtii xanuunkeeda iyo warwarkeedaba wadata waxaa meelo kala duwan caalamka islaamka iyo wadamada carabtaba lagu helay kutub qur-aanah oo lagu xardhay oo lagu sawiray midabyada kala duwan ee dadka maaragtay faaxishada qowmi luut sameeya amba calanka ay ka dhigteen iyo astaanta ay samaysteen oo markaa ay doorteen midabyada la yiraahdo midabyada markaas jeegaanta amba qaws qusax amba alwaan dayf carabigaas loogu yiraahdo amba midabyada loo yaqaano rainbow oo markaasi u yihiin midabyada roobka waqti roobaadka maaragtay samada ku samaysma oo runtii midabyo qurux badan ah laakiin midabyada quruxda badan ay calaamad ka dhigteen haddana ay rabaan inay ku qasbaanba diintii islaamka oo ay diinta oo mowqifkay ka taagan tahay camalka qowmi luut aynu wada ogsoonahay xaaraanta ay tahay ficilkaasi iyo foolxumada ay maaragtay diinteena ku tilmaantay ayaa haddana ay ku dhiira